masaajidkan dhinaciga ka muuqda muddo 30 sano ka badan oo ay jamaacada halkan deganeed ku oogayeen salaadaha faralka ah waxay saakay salaadii subax u ahayd subaxii ugu dambeysay ee ay ku oogto jamaacadan si wada jira ayna ku tukadaan salaadii subaxiga salaad subaxii ugu dambeeyay ayaan maanta ku tukanay masaajidka kalluunka oo u jeedin dadkii oo dhan inay abshir iyo ala xaashi wala buuxa dhamaan waxaa 30 sano oo ku tukanay dowladda Soomaaliya ayaa bilowday burburinta xaafadda xero kalluun oo ay deganaayeen dad shacab oo aad u badan iyadoo oo geysay ciidamo waxaana la burburiyay qaybaha kala duwan ee xaafaddu ka koobnayd wiilkan oo aan da'diisa ku qiyaasnay 8 ilaa iyo 9 sano jir ayaa ka mid ah dadka saq dhexe oo xalaya inta guryahooga ciidamo ugu soo dhaceen cagacagafna la geliyay waxa uu sheegayaa iyadoo oo saacadu ay tahay 8 saac iyo 45 daqiiqo oo habeenimo in barakacintan sababteeda uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha barakacinay maxaa sameeyay markii lagu barakacinay ana cagacagaf wax maardin si kastaba ma aha xaafadihii ugu horreeyay ay burburin ku sameyso dowladda Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho marka aad joogto horey dhowr jeer ayaa goobo ay deganaayeen dad shacab ah oo danyar u badan dowladdu ay burburin ugu sameysay iyadoo oo la sheegay in goobahaasi qaarkood ay qaadanayeen dad ganacsato ah halka dowladdu ay ku sheegtay iyadoo in ay markaasi dan guud u adeegsan doonto warkan badi waxaa cambaariyay bulshada qaybaheeda kala duwan sida siyaasiyiin dhowr ah hase ahaatee maamulka Jubbaland oo dowladda khilaaf xoogan kala dhaxeeya ayaa iyagu si aad u cambaariyay iyagoo madaxweynaha jamhuuriyadda ugu yeeray eedeysano maaha halkii ugu horeysay ee dowladdu burburisay xero kalluun xalay waxaa la sheegay in ciidamo aad u badan oo boqolaal gaaraya lehna qaybaha kala duwan ee ciidamada ay xaafadaasi saq dhexe oo habeenimo ay u daateen labadii saq dhexe ama 8 saac wixii ka dambeeyay dadka xaafadda xero kalluun degan waxay u ahayd habeen kaga duwan habeenada kale goobaha lagu cibaadeysto oo kamid ahaa masaajidka aad hore ku soo aragteen iyo qaybo kale oo xaafadahaasi ka koobnaayeen ay ciidamada lug ku galeen waxaa la diiday guud ahaan in la adeegsado taleefanada smartga ee muuqaalada duuba sidoo kale wariyaasha ayaa la xakameeyay oo loo diiday inay galaan goobtaas iyo meel u dhow guud ahaanba waxaa adag in la helo xogta dhabta ee gudaha ka jirta hase ahaatee shacab aan khadka taleefon kula hadalnay qaarkood waxay sheegeen inay wajahayaan mid ka mid ah xaaladihii ugu adkaa sidoo kale ciidamada dowladdu ayaa handadaad ku sameeyay trawriyaal ah oo halkaasi ka wardoonay rabayna in xogta dhabta ah ee xero kalluun ay ku sugan tahay ay usoo gudbiyaan dadka shacabka ah dad lagu qiyaasay dhowr kun oo qoys ayaa deganaa xaafadan xero kalluun oo ku taal degmada Waabari ee gobolka Banaadir waxaana shacabkaasi ay u badnaayeen kuwa danyar ah horey ayay dowladda Soomaaliya burburin ugu sameysay xaafado dhowr ah oo ay ka mid yihiin dabdamiska qaybo ka mid ah Soonakey xaafadaha jaamacadaha iyo sidoo kale wasaaradii hore arrimaha gudaha oo iyadu ku taal degmada Boondheere ee gobolka Banaadir oo iyadu sidan oo kale burburin loogu sameeyay sababta ugu badan ee ciidamada dowladdu sidan u sameynayaan waa amar xagga sare uga yimid madaxda ka sarreysa ay ku amrayaan dadka badankood waxay eedeeyaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilheyntiisii horan dhulboob lagu eedeynayay sidoo kale muddo kadib oo xilka dalka qabtana si lamid ah lagu eedeynayo isla dhulboobkii Muqdisho marka aad joogto waxa ugu badan ee dhagahaagu ay maqlayaan waa dhulboobka iyo sidoo kale in dowladda Soomaaliya ay ganacsato u gacmo qabanayso dadka danyarta ah ee mudnaa in ay deganaadaan dhulka dowladda haddii aysan dowladdu iyadu markaasi dadka shacabka ah dantooda aysan ugu adeegin ama dan guud aan laga dhigayn si kastaba ilaa ay hadda xero kalluun lama oga waxa loo asteeyay ee gaarka ee dowladdu ay ku qaban doonto hase ahaatee shacabkeeda ayaa wajahaya xaalad cakirnaana wixii xoogaa ay soo kordho halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa